ku soo dhawaada qaybtii ugu horeysay filimka kooban 3 qaybood oo aan si gaar ah ugu eegi doono marxaladaha kala duwan ee ay soo martay magaalada Marka. waxaan sidoo kale ku eegi doonaa nolosha dadka ku nool magaaladaasi, colaadii ay soo martay iyo xaaladda haatan ay ku sugan tahay. ku dhawaad 30 sano oo colaad soo taagneed kadib, Marka waxay cagta saartay dhabihii nabadda, dib u heshiisiin iyo isdhexgal bulsho. arrimahaasi oo u horseeday in maanta ay noqoto mid ka mid ah magaalooyinka ugu ammaanka badan guud ahaan Soomaaliya. waxaa dib u soo laabanaya noloshii caadiga ahayd. qaybtan ugu horreysay ee dokumentarigan waxaynu diradda ku saari doonaa taariikhda dheer ee magaalada Marka iyo dadaalada dib u heshiisiinta ah ee socda. halkani waa magaalada qadiimiga ah ee Marka oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ee Soomaaliya. waxa ay qiyaas ahaan caasimadda Muqdisho u jirtaa inta u dhaxaysa 70 ilaa 90 kiiloomitir, waxayna kaga taallaa dhinaca koonfur galbeed. waxa ay leedahay taariikh gaaraysa in ka badan 1000 sano, waxayna bilaabatay ka hor intaanu Soomaaliya qabsan gumaystihii Talyaaniga. taariikh ahaan Soomaalidii ugu horreysay waxaa la aaminsan yahay in Marka ay degaan ka dhigteen qarnigii 6aad, waana magaalo ku taala goob muhiim ah oo ku teedsan badweynta Hindiya, taasi oo macnaheedu tahay in ay noqotay mid soo jiidatay indhaha ajaanibta badmaaxayaasha iyo bayac mushtarka ka howlanaa qarniyadii tegey. waxaa ka mid ahaa ajaanibtaasi carabtii bayac mushtarka ka waday inta u dhaxaysa dhulka Carabta iyo qaaradda Afrika, Burtuqiiska iyo weliba Talyaanigii doonayay inuu gumaysto qaaradda. inkastoo ay dagaalo socday ku dhawaad 30 sano soo martay, haddana Marka weli waxaa taagan oo ka muuqda dhismooyinkii qadiimka ahaa, kuwaasi oo ka turjumaya taariikhda dahabiga ah ee ay leedahay magaalada. weli waxaa taagan masaajidyadii, guryihii iyo goobihii taagnaa qarniyo ka hor. gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ahaa gobol qani ku ah dhinaca beeraha iyo wax soo saarka, waxaana uu halboolo u ahaa wax soo saarka beeraha ee Soomaaliya. waxaa taasi ugu wacan dhul beereed